السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتك وحيرين جنالك بدون قرافي كسو دواد مقال عصب مقال كنا waxaan kaga hadlaynaa in su'aalayn soo weydiin asxaabta ku xiran janaalka guddoon graphic iyo sidoo kale barteena Facebook iyo TikTok design marka sida darteed waxaan rabnaa inaan su'aalahaas ka jawaabno asxaabta uga jawaabno su'aalahan way soo noqnoqdeen dad badan ay xaqooda ka soo noqnoqdeen su'aal waxay ku saabsan yihiin Adobe Premiere 2020 iyo sida video loo soo galiyo dhexdiisa oo markaas kadib loo jarjaro videogaas looga shaqaysiyo muhiimaduna ay tahay sida import video loo sameeyo wax la yiraahdo oo halkan ina video keento oo kadibna ay shaashadan ku shaqayso casharo hore waxaanu ku sameynay inaan sequences abuurno marka hore sequences kan abuurayna waxa ka soo diraynaa icon ay ku qoran tahay new item ayaan click siinay kadibna halkan ayaan click siinay markaas waxaan sameeynaa halkaas ka soo doorano calaamadan ari oo resolution ari 1080p oo 30 frame per second kadibna okay halkan tama wax ku qorno okay aan siinay si ka fudud ayaa sameyn karaa su'aal adiga muuqaal soo duubatay oo kaamirada adeegsatay muuqaal soo duubatay muuqaalada frame-ka ay ku sameeysan yihiin iyo waxa dhan waad garanaysaa sida darteed halkan ayaan double click siinayaa kadibna halkan ayaan muuqaaladeeda ka soo xulanayaa tusaale halkan kale iyaalin oo soo xulanaya labadaas soo xulanaya haddaan rabo labadana soo xulanaya aniga markaas waxaan leeyahay open ujeeda halkan laba ayaa taala hadda dad icon-ka fiyo icon taabto halkan waa yaalin labada muuqaal bayaan marka waxaan sameynayaa si aan halkan u furo program editor-ka aan u furo waxaan rabaa inaan videogan sequenceska ama resolution-ka uu ku samaysan yahay frameskiisa in aan ku sameeyo program editor-kii oo aan position-ka videoga dhexdiisa ka abuuro way fahantaa umaleynaya macnaha halkan meeshan awal furayna icon-kan ayaan waxaan rabnaa videoga dhexdiisa inaan ka abuurno maxay sequenceski oo program editor-kan noogu shaqayn lahaa kadibna videoga aan ku geysan lahaa okay laba maadaama marka samayn karaa inaan videoga inaan qaado oo halkan ku sii daayo halkan tan left click qabto left click kaliya aniga haye aan halkan ku sii daayo taas waa mid okay aan ka laabto control set midda labaad waxay tahay hadda control sida ay kadibna sequencesku oo sida automatic u sameeyo ayaan tirtira midda labaad waxay tahay inaan videogan right click dhaho kadibna aan dhaho new sequences from clip way fahantaa marnay awal maxaan leeyahay drag and drop waan qaadnay antan ku sideen kadibna waan ka noqonay midii labaad ayaan sameynaynaa midda labaad maxay ahayd inaan videogu soo noqono oo aan right click dhahno kadibna new sequences from clip aan idhaahno okay aan dhahno clip sidaan ayuu kugu samaystay hadda tusaale haddaan ka laabto control set aan idhaahdo oo sequenceskan aan tirtiro waxaa ujeedaa meeshaan kore icon-kan kore program editor-kii waxaa ku yaala no sequences way ujeedaa laakiin markaan videoga dhaho kadibna right click kadibna new sequences from clip aan yiraahdo maxaa ku soo qorma shaah ku soo qorma shaah kan waa videoga magaciisa weeyaa shaah program shaah ku soo qorantay marka saas ayuu wuxuu u samaystay sequenceski loo baahnaa oo muuqaalkan ku jaango'an yahay muuqaalkan intan ayuu ku sayskiis waa intan asagana wada si automatic la wada okay way fahantaa malaynayaa marka fadlan haddii aan su'aashaadi ka jawaabay muuqaalkan waxaa laga doonayaa inaad comment garayso oo walaalaha u baahan in ay cabashadooda kale ay ka magaranaysaa faa'iideystaan ama magaranaysaa ay casharada sidaas ku ay ka faa'iideystaan aad adiguna la sii wadaagto aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh